safaan hala saaxiibka ama fanaankeena Soomaaliyeed waxay ku dhacay wax oo mataqaana asaga mataqaana naxdin kule ma ahan mise wax oo asaga mataqaana oo surprise ku noqotay ma wax uu filayo waa sababtoo ah markuu Sweden imaanay Sweden laba nooc sharci la isku siyaa midka koowaad oo ah in lagu siiyo qaxootinimo in lagu qaabilo oo lagu dhaho qofkan wadanka qaxootinimo lagu qaabilo oo lagu dhaho inta ku noolaan kartaa noloshaada inta ka dhiman sharci weyn waa ka qaadan kartaa waana deganaan kartaa oo lagu ogolaaday qaxootinimo talabaad oo ah in lagu ogolaaday bini'aadanimo oo meesha aad ka imaaday ka sheegatay dhibaato laakiin waxa lagu leeyahay dhibaatada markay ka baxday meesha aad ka imaaday bis dadka aad ka cabsanaysa mis waxa ka cabsanaysa markay baabaad waa lagu celin karaa soo asay kala sii waxa waa bini'aadanimo loo qoonsaday looma aqoonsanin qaxootinimo okay marka asaga kii bini'aadanimo la siiyay marka 5 sano la siiyay marka 5 waxa lagu xijiyay 3 sharuudood sharuudda koobaad oo ah wadanka inaad shaqaysid oo cashuur aad soo gelisid cashuur aad bixisid wadanka ma fahamsan tax inaad bixisid talabaad oo ah wadanka deynada ka qaadatid deyntiis in aad gudid ma fahamsan oo deynta hayraad haweenaad waana guddaa deynta tan saddexaadna waa wadanka wax dagaal inaad ku sameeyeen ma fahamsan okay asaga fanaan Soomaaliyeed ahayd lacagta soo galeysay oo waxay dhan wadanka uma sheegin self employer muusa qoronin asaga kaliya ayaa qaadanaya xafado dhigtaa wixii aroos ka soo galaa wixii faahis ka soo galaa wixii YouTube ka soo galaa asaga oo kaliya qaadanaya wadanka uma sheegin cashuur wadanka muusa bixineen okay marka taas waa muxuu ahaayay waa mid koobaad qalad koobaad uu sameeyay talabaad qaladka uu sameeyay waxa waaye wax deen muusa qaadanin ma fahamsan wax deen ah ma uusa qaadanin okay asaga oo dana shaqeysana businesskiisa kala shaqeysana wax shaqa muusa aadin ma fahamsan oo hal maalin wadanka cashuur muusa soo galin hal maalin dhaqaale wadanka muusa soo galin waliba saas ay tahay wuxuu sii qaadanaa wadanka ceertiisa ma fahamsan wadanka lacagta wadanka uu sii qaadanaa soo marka 5 sano marka uu dhamaatay waaga ku bariyay oo dhaa wow 5 sano way dhamaatay mana shaqeynin wadankan wax ma soo gelinin laag ceerna waa qaadanayo oo wax ka sii qaadanayo laag maxaa sameeyaa tala farka baxda saaxiibka go'aan degdeg u gaaray wuxuu yiri waxaan u cararayaa Francisco dadka iska dhiibaan badan dadka Sweden ka cararo si sharci kale u qaataan Francisco tagay process u socday adiga maashay wixii u socday saaxiibka Sweden laga dhex raadinaya marka maadaama 5 sano u dhamaatay in la qabto oo la bixiyaa la rabay fahamsan saaxiibka faro baxday la dhaawday fahamsan Brunigan faro baxay in la bixiyaa la rabay saaxiibka marka maadaama uu Francisco soo laabtay hadda maanta oo u soo laabtay aroosaan u soo laabtay kuwa Soomaaliya xaasidiina waxay dhaheen saaxiib kale kicis booliska Oscar waxay dhaheen booliska nimayo ninka raadinayeen oo kana caaw aroos dhiganayaa ninka oo kala xira oo kala kacsan tahay ma fahamsan waqti hebel oo hool ka soo galaya anaga shaqadana waa qabsanay adinka booliska shaqadina qabsaday booliska Sweden kuwa ilaahay iimaan ka soo rido waa ma fahamsan kuwa dhagoola oo waxay maqlaan iyo waxay markaa mala xoolaada maqasha ayaga waa si u soo socdeen le ninkii aroos ma jooga dhakab dhigaan shanina waa weyn dhab ninkii luka laga qaaday ma fahamsan lugu weef ka sii wala la السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركب مركب رجوان السلام كل جميع مركز جوتين أخبار بعدين هاي عاو. أركب مركب وحنت وهال ملاينا سعد كي صفوان هلا عفنان كي يد ماشيين السوداء وراس عاوة وقطع عيد. ده كان الجنوب السودان كرهان من الاستقلال. هم بلا يسكتب وحيسود قرتي سعد كي ميرك مركب عيد. وعاد تجي ومستغربوا الحري بريس خبز. information بدنا الرادي because قبت من جوا نيجا وجعلنا العادي لكن أرمى العادي وحاد عادي إن لك الشفي سيابك دوم الله كشفي وحان كلو وجادي سومالي ذا إنه ما قرنا إنه ولا ما قرنا والله. قلت إلهي سبحانه وتعالى والقرآن تشكو يري حاسدني إذا حاسد عاد. عيد ويانا كرا لكن هابين كتبوه هراي ونرشاد أو عراس أعطاهي إلا وكشفوا عند البوليس لو وعوا طلبناه نكر هذين الزين مشان الكجرة على قفط هذا أوضح ما والله حاسدين إذا حاسد دام الرجل مركز نكتاس أنا وقفتي وحريه هذا قبل عراس كل جيل هذا ما أعرف هيدو في البيت كمان احنا ودك شو دقيقه ودك ذكر عايز نهجو على يا حرام مسكين قال ساعه كان صفان وروز كيس لو باباجنا او لو كشفا safaan hala saaxiibka ama fanaankeena Soomaaliyeed waxay ku dhacay
wax oo mataqaanaa asaga mataqaanaa naxdin ku leh ma ahan mise wax oo asaga mataqaanaa oo surprise ku noqota ma wax uu filayo waay sababtoo ah markuu Sweden imaanay Sweden laba nooc sharci la isku siiyaa midka koowaad oo ah in lagu siiyo qaxootinimo in lagu qaabilo oo lagu dhaho qofkan wadankiisa qaxootinimo lagu qaabilo oo lagu dhaho inta ku noolaan kartaa noloshaada inta ka dhiman sharci weyn waa ka qaadan kartaa waana deganaan kartaa oo lagu ogolaaday qaxootinimo talabaad oo ah in lagu ogolaaday bini'aadanimo oo meesha aad ka imaaday aad ka sheegatay dhibaato laakiin waxaa lagu leeyahay dhibaatada markay ka baxday meesha aad ka imaaday mise dadka aad ka cabsanaysa mise waxa ka cabsanaysa markay baabaad waa lagu celin karaa soo asaga kala siiyay waxa waa bini'aadanimo loo qoonsaday looma aqoonsanin qaxootinimo okay marka asaga kii bini'aadanimo la siiyay marka 5 sano la siiyay marka shanta waxa lagu xijiyay 3 shuruudood shuruudda koobaad oo ah wadanka inaad shaqaysid oo canshuur aad soo gelisid canshuur aad bixisid wadanka ma fahamsan tax inaad bixisid tan labaad oo ah wadanka deynada ka qaadatid deyntiis in aad gudid ma fahamsan oo deynta hayraad haweenaad waa guddaa deynta tan saddexaadna waa inaad wadanka wax dagaal inaad ku sameynin ma fahamsan okay asaga fanaan Soomaaliyeed ahayd lacagta soo galeysay oo waxay dhan wadanka u muush sheegin self employer muusa qoranin asaga kaliya ayaa qaadanaya xafada oo dhigtaa wixii aroos ka soo galaa wixii faahis ka soo galaa wixii YouTube ka soo galaa asaga oo kaliya qaadanaya wadanka u muush sheegin canshuur wadanka muusa bixineen okay marka taas waa muxuu ahaay waa mid koobaad qalad koobaad uu sameeyay tan labaad qaladka uu sameeyay waxa waaye wax deyn muusa qaadanin ma fahameysaa wax deyn ah ma uusan qaadanin okay asaga oo dana shaqaysanaa businesskiisa kala shaqaysanaa wax shaqa muusa aadin ma fahameysaa oo hal maalin wadanka canshuur muusa soo gelin hal maalin dhaqaale wadanka muusa soo gelin waliba saas ay tahay wuxuu sii qaadanaa wadanka ciyaartiisa ma fahameysaa wadanka lacagta wadanka uu sii qaadanaa soo marka 5 sano marka uu dhamaatay waaga ku bariyay oo dhaa wow 5 sano way dhamaatay mana shaqeynin wadankan wax ma soo gelinin laag ciyaarna waa qaadanayo oo wax ka sii qaadanayo laag muxuu ahaatay maxaa sameeyaa tala farka baxay saaxiibka go'aan degdeg u gaaray wuxuu yiri waxaan u cararayaa France Francisco dadka iska dhiibaan badan dadka Sweden ka cararo si sharci kale u qaataan Francisco tagay process u socday adiga maashay wixii u socday saaxiibka Sweden laga dhaxlaadinaa marka maadaama 5 sano u dhamaatay in la qabto oo la bixiyaa la rabay fahmaysa saaxiibka faro baxday la dhaawday ma fahmaysa Brunigan faro baxay in la bixiyaa la rabay saaxiibka marka maadaama aadan Francisco soo laabtay hadda maanta oo u soo laabtay arosaan u soo laabtay kuwa Soomaaliya xaasidiina waxay dhaheen saaxiib kale kicis booliska hoos ka waxay dhaheen booliska nimayo ninka raadinayeen oo kana caaw aroos dhiganayaa ninka oo kala xira oo kala kacsan tahay ma fahameysaa waqti hebel oo hoolka soo galaya anaga shaqadana waa qabsanay adinka booliska shaqadina qabsaday booliska Sweden kuwa ilaahay iimaan ka soo rido waa ma fahameysaa kuwa dhagoola oo waxay maqlaan iyo waxay markaa mala xoolaada maqasha ayaga waa si u soo socdeen leh ninkii arooska meesha jooga dhakab dhigano shanina waa weyn dhab ninkii luka laga qaaday ma fahameysaa lugu weef ka sii wala la tagay